Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka Afifa Warsame. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta ku saabsan buugga la yiraahdo 12 Rules of Life. Buuggaaneetu waxaa qoray nin la dhaho Jordan Peterson. Waxa uu buuggani ka kooban yahay 12 xeer. Inta aanan u gudagelin xeerarka 12 ah, aan marka koowaad ku horumarno horodhaca buugga. qaybta horodhaca ah waxa uu ku hadlaa waxyaabaha ku aadan ideologiska, orderka iyo sidoo kale chaoska. Waxa uu leeyahay ideologiska waa fikrado fudud oo loo ekeysiyey sida sayniska ama falsafada, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu sharaxo adduunkan kan oo waxa ay isku dayayaan inay bixiyaan dawooyin mise xalal nololeed. Ideologiska waa fikradaha dadka isku maleeya inay yaqaanaan sida adduunkan ay uga dhigi lahaayeen meel wanaagsan, iyadoo laga yaabo in aysan xalin rabshadaha gudeed ee naftooda. Waxa uu leeyahay orderka mise nidaamka waa marka dadka kugu xeeran ay u dhaqmaan si waafaqsan xeerarka bulsheed. Waa marka la saadaalin karo wada shaqayn inay dhici karto. Dhanka kale chaoska mise qalalaasuhu waa marka wax lama filaana ay dhacaan. Waa marka fawdo ay usoo ifbaxdo qaab aan macno lahayn. Marka Peterson waxa uu leeyahay sida chaoska ama qalalaasaha looga hortago looma baahna ideology ee waxaa loo baahan yahay in qof walba uu xalliyo shakhsiyadiisa. Waxa uu aaminsan yahay in bulshada wanaageeda uu ka imaado personal change ama in shakhsiyaadku ay naftooda bedelaan. Talada uu bixinayo ayaa ah clean your room, macnaha qolkaaga nadiifi. Haddii qof kasta qolkeeda ay nadiifiso, qol kasta waxa uu noqonayaa mid nadiifsan. Haddii qof kasta ay shakhsiyadiisa dhisato, bulshadu waa ay wada dhisme. Ilaan bulshadu waxa ay ka kooban tahay shakhsiyaad. Wax kasta waxa ay ka bilaabmaan in naftaada aad fiksi garayso mise dayactirto. Wax kasta waa xalin karnaa haddaan nafaheena aan xalino, ayuu leeyahay. Aanu gudagalno 12 xeer. Xeerka koowaad, stand up straight with your shoulders. Qoraaga waxa uu leeyahay bulshadu waxa ay u qaabaysan tahay kala sarreyn oo waxaa jiro dabaqado hoose iyo kuwa sare. Dabaqadahan waa wax dabiici ah. Taas waxaa sii dheer waxa uu leeyahay dadka dabaqadaha hoose ku nool waa dad u nugul jirooyinka oo inay silac u dhintaan ayaa sahlan. Waxa uu leeyahay xayawaanada ugu awooda badan ayaa hela cuntada ugu badan iyo wax kasta oo ugu fiican. Waxa uu tusaale u soo qaatay lobsterka mise haraanka. Waxa uu leeyahay haraanka dabeecadiisa waa ay isbedelaan marka loo eego heerarkooda serotonin iyo sidoo kale dopamine. Haraanku waa xayawaan mar walba dagaal ku jira oo marka laba haraan ay isu timaado midba midka kale ayuu isku taagaa. Midka madaxa kor u qaata markaas ayaa dhiiranaan muujiya, waa midka u badan in uu guuleysto. Marka haraanka uu dagaalku ku guuleysto, waxaa sare u kaco heerkiisa serotoninka halka ay hoos u dhacdo dopamine-ka. Macnaha marka haraanka serotoninkooda ay kor u kacdo, waxay dareemayaan guul iyo sareyn. Dhanka kale marka dopamine-ka ay kor u kacdo, waxay dareemaan guul darro. Arrintaas mid la mid ah ayaa waxaa lagu dabaqi karaa aadanaha. Markasta oo aan qof la kulanno, waxaan qiyaasnaa booska qofkaasi uu kaga jiro bulshada. Qaabka aan u fahmno maqaamkeena iyo awoodeena ayaa ka qayb qaadanaysa badqabkeena iyo nolol wanaageena. Dadka isku kalsoonaanta badan muujiya waxa ay dareemaan amni gudeed. Taasina waxay u sababtaa in ay helaan ixtiraam. Wax kasta waxa ka muhiimsan sida naftaada aad u aragto mise aad u fahanto. Marka qofka uu leeyahay adkaysi badan, waxaa siyaada serotoninkooda. Taasina waxay ka saacideen inay lahaadaan farxad iyo badqab wanaagsan. Waxaa taas cagsi ku ah dadka naftooda sida hoose u fiiriya waa dadka serotoninkooda ay hooseyso. Taasina waxay ku qasbeen wax soo saar la'aan iyo badqab la'aan. Si kooban, qaabka aan nafteena u aragno ayaa saameyn nagu leh. Haddaad si godan u istaagto markasta oo aad u muuqato qof cabsanaya mise qof aan dhacsan karin xuquuqdiisa, waxaa badnaanaysa dadka kugu tunta. In qaab istaagaaga aad toosido oo aad u istaagto si ruux iyo xayaato leh, waxa ay kaa caawinayaan in dadku ay ku ixtiraamaan oo ay kuu oggolaadaan qaar ka mid ah xuquuqdaada. Marka u istaag si toosan, ha is hooseyseen. Qoraaga waxa uu ku doodayaa
inaad si fiican u istaagto ama qaab istaagaaga aad toosiso waxa ay gudbinayaan fariin ku saabsan kalsoonidaada iyo awooddaada. taasina waxa ay siyaadinayaan caafimaadka maskaxdaada oo waxa ay kaa yaraynayaan cadaadiska maskaxeed oo waxa ay siyaadinayaan heerarkaaga tamareed, taas oo xitaa ka qayb qaadanaysa horumarinta habdhiska neefsashadaada iyo sidoo kale kan dheefshiidka. xeerka labaad ayaa ah treat yourself like someone you are responsible for helping. naftaada ula dhaqan sidii ruux aad mas-uul ka tahay caawintiisa. markasta waan ka taxadirnaa waxyaabaha mas-uuliyadda ay naga saaran tahay sida carruurta, qoysaskeena, asxaabta iyo xoolaha aan rabaayadaysano. laakiin annaga nafteenna sidaas ugama taxadirno. waa muhiim sida aan ayaga uga taxadirno inaan nafteenna uga taxadirno. waa wax sahlan inaad qolkaaga nadiifiso, inaad naftaada ixtiraamto oo meelaha ixtiraam darrada aad kala kulmayso aad ka fogaato oo doodaha niyadjabka aad kala kulmayso aad ka dheeraato. markasta oo aan nafteena ka taxadirno waa markasta oo aan dareemno awood iyo caafimaad. waxaa taas cagsi ku ah haddaan nafteenna dayacno waxaan luminaynaa quruxdeena, caafimaadkeena iyo awood kasta oo naga muuqata. marka naftaada ula dhaqan sida aad ula dhaqanto dadka aad jeceshahay. qodobkan waxa uu aad u xoojinayaa muhiimaddu ay leedahay naf daryeelka iyo nafka warqabka dhanka caafimaadka jireed iyo maskaxeed. xeerka saddexaad, make friends with people who want the best for you. la saaxiib dadka raba inaad gaarto waxa ugu wanaagsan ee aad gaari karto. qof walba waxa uu haystaa laba nooc oo qoys aad ka dhalatay iyo mid aad adigu dooratay sida saaxiibada. waa wax ku wanaagsan inaadan qof walba oo hareertaada jooga aadan la socon. waa inaad ka fogaataa dadka aan waxba kugu soo siyaadinin oo laga yaabo xitaa inay gadaal ma aragtay kuu dhigayaan. waa inaad ka fogaataa dadka aad kala kulanto niyadjabka iyo ixtiraam darrada iyo sidoo kale dadka aan kugu saacidi karin yoolkaaga iyo hadafkaaga iyo meesha aad socoto. waxa uu qoraygu leeyahay qofka waa uu dooran karaa dad wanaagsan haddii uu marka hore naftiisa uu ka dhigo qof wanaagsan oo adkaysi iyo awood leh. waqtigaaga ha ku bixin la jirka dadka qaldan mise dadka aan noloshaada ku habboonayn. xeerkan waxa uu xoojinayaa muhiimaddu ay leedahay inaan nafteenna u doorno oo aan ku hareerayno dadka na taageeraya oo na wanaajinaya. waxa uu soo jeedinayaa inaad saaxiib la noqotid dad aad isku qiyam mise isku yool tihiin. xeerka afraad, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. naftaada la barbardhig qofkii aad shalay ahayd, laakiin qof kale ha la barbardhigin oo maanta jira. waa wax caadi ah in dadku ay inta badan isla barbardhigaan dadka ay u arkaan in ay yihiin kuwa guulaysta mise kuwa wax uun wanaagsan sameeya. xitaa haddii aad aaminsan tahay in qofkaani uu ka nolol fiican yahay, isbarbardhiga waa wax xun oo micno darro ah oo dhibaato kuu horseedaya. ma ogid qofka aad isla barbardhigayso xaaladda uu ku jiro. laga yaabo inaad isleedahay waa qof guulaysta, waa qof horumar gaaray, laakiin waxaa laga yaabaa xaalad nafsiya mise dhibaatooyin kale inuu ku jiro oo uusan ku qanacsanayn nolosha aad adigu la barbardhigayda taada. waxa muhiimka ah ayaa ah inaad adigu noloshaada aad diirad saarto. ka fikir waxyaabaha kugu saabsan oo kaa xanaajiya yacni aadan isla rabi lahayn. sidoo kale isku day sida waxyaabahaas aad u horumari lahayd oo aad u bedeli lahayd. dib u fiiri sidii aad shalay ahayd iyo halka maanta aad taagan tahay. iska daa laakiin inaad dadka kala fiiriso. xeerkan waxa uu noo sharaxayaa muhiimaddu ay leedahay naf horumarinta iyo sidoo kale naf korinta. marka waxa uu soo jeedinayaa halka aad naftaada barbar dhigi lahayd dadyowga kale, ku dadaal inaad naftaada horumariso oo aad iska dhigto nooc cusub. xeerka shanaad, don't let your children do anything that makes you dislike them. carruurtaada ha u ogolaan inay sameeyaan waxaad ku necbaan karto. hooyo ahaw ama aabba ahaw waxaa tahay waalid aadane ah. aadanaha waa mid wax kasta laga filan karo. aadanaha waa qaldame, sidoo kale waa xamaasad badan yahay, waa uuna qiiro badan yahay. aadanaha qof kasta oo qalad ka sameeya inuu ka aarsado ayuu isku dayaa, xitaa haddii uusan rabin inuu ka aarsado si aan kas ahayn ayuu aarsiga u sameeyaa. waa dabci aadanaha uu leeyahay. waxaa laga yaabaa inaad aaminsan tahay inaadan waxyaabaha qaar carruurtaada aada ku samayn lahayn mise waxyaabaha qaar aada u quuri lahayn, laakiin qofku marka uu caroodo waxyaabo badan ayaa ka suurtooba. qodobkaani waxa uu xaqiijinayaa mise uu hoosta ka xariiqayaa
muhiimadu ay leedahay barbaarinta iyo sidoo kale xeer dejinta caruurtaada waa inaa xeer u dejisaa, waa inaa kala bartaa waxa aad rabto iyo waxa aadan rabin, waxa kuu qalma iyo waxa kuu qalmin qiyamkaaga iyo waxa aan qiyamkaaga ahayn. haddaadan sidaas u kala barin, waxyaabo waxay sameynayaan kaa xanaajiya, adigana waxaa laga yaabaa inaad markaasi qaldan aad ula dhaqanto caruurtaada. waxa uu qoraagu ku doodaya in caruurtu ay u baahan yihiin nidaam qaabaysan iyo sidoo kale neef adbin. waa inaa hadda neef adbintaas u samaysaa si hadhow marka ay weynaadaan ay u noqdaan kuwa mas-uuliyad qaadi kara. xeerkan waxa uu xoojinayaa in caruurta la baro waxa aad rabtid iyo waxa aadan rabin, si caruurtu ficilada ay qaadayaan ay uga taxadaraan iyo waxyaabaha ay sameynayaan, waxyaabaha ka dhalan kara ay uga taxadaraan. waxa uu waalidka kula tartaarmaya inay u degsadaan xayndaab u sameeyaan caruurtooda si ilmuhu ay u xakameeyaan tilaabada ay qaadayaan iyo sidoo kale si isla xisaabtan u imaado. xeerka 6. Set your house in perfect order before you criticize the world. gurigaaga ka dhig mid nidaamsan ka hor inta aadan adduunka dhaleecayn. xeerkan waxa uu xoojinayaa inaad mas-uuliyad ka qaado naftaada iyo waxa kugu hareeraysan, halkii aad la soo taagnaan lahayd inaad eedeyso oo dhaleecayso adduunka kale waxa ka socda iyo arrimaha dibadda ka ah qorshahaaga iyo rabitaankaaga. qoraagu waxa uu ku doodayaa in dadku ay diirad saaraan oo ay eedeeyaan adduunka iyo ficilada dadyooga kale, laakiin ay dayacaan inay mas-uuliyad buuxda ka qaadaan waxa ayaga ku hareeraysan. waxa uu soo jeedinayaa waa in la diirad saaro habaynta iyo qurxinta nolosheena. waa inaan mas-uuliyad ka qaadno arrimaha na quseeya oo badqabkeena iyo jiritaankeena ka qayb qaadanaya. waxa xeerkani uu hoosta si fiican uga xariiqayaa muhiimadu ay leedahay mas-uuliyadda shakhsiyad iyo sidoo kale isla xisaabtanka nafeed. waxa uu leeyahay intaadan dadka kale xisaabin waxa ay sameynayaan aadan ka fikirin, marka koowaad naftaada sax, arag qalafsanaantaada iyo qaladaadkaaga, dadka kale ha fiirin. bulshada ha fiirin waxa ka socda, bulshada ha eedayn, laakiin adigu hadda taqaana waxa saxan dooro, waxa saxan samee. Number 7. Pursue what is meaningful, not what is expedient. dooro yacni waxa macnaha leh oo macnaha buuxa keenaya, laakiin ha dooran waxyaabaha raaxada gaaban iyo sidoo kale ku habboonaanta aad ka helayso. qodobkani waxa uu ku saabsan yahay muhiimadu ay leedahay inaad raadiso nolol macno badan leh, halka aad ka raadin lahayd raaxo oo aad mar walba isku dayi lahayd inaad ka cararto xanuunka iyo dhibaatooyinka. waxa uu aaminsan yahay qoraagu in dadku mar walba ay raadshaan waxyaabaha ay ka helaan farxadda waqtiga gaaban jiraysa, oo aysan runtii ka fikirin nolosha micnaheeda qotada dheer. marka loo eego qoraaga, micnaha waa nooc aragtiyeed oo kuu oggolaanaya inaad ogaato inaad joogto booska kugu saxan adiga iyo inaadan joogin. booska saxan waa meesha u dhaxaysa rabshada iyo nidaamka. haddaa mar walba ku dhex jirto boos ama meel nidaam iyo kala dambeyn leh oo aadan weliga aadan arag rabshad iyo rafaad, waxaa kugu adkaanaysa inaad si ruuxi ah u korto oo waxyaabo badan aad ka fikirto ama aad tixgeliso. sidoo kale haddii aadan weliga arag nidaam iyo kala dambeyn oo aad rabshad ku dhalato ku dhex korto, waad lumaysaa, waxaana noqonaysaa qof rabshadaas keliya muraayad ka dhigta oo rabshadaas ku fiirsha adduunka. doorashada ugu wanaagsan ayaa ah inaad labada dhinacba dhexdhexaad ka joogto, inaad labada nololoodba aad aragto. ka tag meesha aad amniga badan ku aragto adiga oo aan gaarin rabshada caadiga ah. expediency-ga ama ku haboonaanshaha waa waxa dadku sameeyaan si ay dhibka uga cararaan, taasoo ah helida raaxo waqti gaaban soconaysa. expediency-ga kaliya waxa uu wanaagsan yahay waqti gaaban, laakiin mustaqbalka fog waxba kama tarayo. jooji waxyaabaha qaar aad sameynayso si aad uga cararto xanuunka kaaga imaanaya mas-uuliyadda iyo sidoo kale naf edbinta. xeerkan waxa uu soo jeedinayaa inaan qabanno waxyaabaha mise dhaqdhaqaaqyada naga caawinaya inaan gaarno hadafkeena, xitaa haddii waxyaabahaasi ay xanuun yihiin mise wadadaasi ay xanaf tahay. Number 8. Tell the truth or at least don't lie. runta sheeg oo ugu yaraan been ha sheegin. xeerkani waxa uu xoojinayaa muhiimadu ay leedahay daacadnimada iyo sidoo kale iswaafaqsanaanta iyo kala hadal la'aanta. waa arrin saaid muhiim u ah marka la joogo falgalka mise isdhexgalka bulshada. waxa uu aaminsan yahay qoraaga in runta la sheego inay aasaas u tahay inaad dhisto xiriir kalsooni iyo micno badan ku dhisan. inaad dadka aad been u sheegto waxa ay dhaawacay suncadaada, waxa ay xumeynay kalsoonida ay kugu qabaan dadka kugu hareeraysan. sidoo kale beentu waa wax qofka ka bogsiiya maanka iyo qulubta. waxa ay kuu kalifay inaad energy iyo tamar badan aad bixiso si aad isku dhowrto oo aad iskaga ilaaliso in la ogaado inaad been sheegayso.
xeerkan waxa uu nafarayaa inaan nafteena ku edbino in beenta aan ka tagno oo mas'uuliyadaas aan qaadno. Runtu waa wax qaraar, laakiin runta oo aad sheegto ayaa sheeko silsilad noqon lahayd soo afjari karta. Runta oo aad sheegto ayaa dhibka uga bixi karta oo aad fudayd ku dareemi karta. Adduunka qofta beentaada ku qancaya maahan qof ku jecel, laakiin qofka runta inta aad u sheegto weli kula sii jooga ayaa waxa uu yahay qofka mudan in lala sii rafiiqo. Beentu waxay kaa dhigaysaa daciif, waxayna kugu kalifaa inaad weyso ixtiraam iyo inaad sidoo kale naftaada ka shakiso oo aad lumiso jiritaankaaga iyo booska aad bulshada ku dhex leedahay. Number 9. Assume that person you are listening to may know something you don't. U fikir in qofka aad dhagaysanayso uu og yahay wax aadan adigu ogeyn. Qodobkani waxa uu diiradda saarayaa muhiimadda ay leedahay inaan dadka dhageysano oo aan dadka kale wax ka barano, xitaa waxa ay ka hadlayaan haddii ay yihiin wax aanan ku raacsanayn mise wax naga soo horjeeda. Waxa uu qorayguna leeyahay dadka inta badan waxay diiradda saaraan fikradooda, laakiin waxay ku fashilmeen inay dadka kale dhageystaan oo ay ixtiraamaan oo ay wax ka bartaan dhinaca kale oo ay wax ka eegaan dhinaca dadka kale wax ka eegayo. Waa wax ku korinaya inaad dhagaysato fikirkooda oo aad aragto waxa ay dhihi rabaan. Qodobkan waxa uu diiradda saaraa muhiimaddu ay leedahay intellectual curiosity. Waxa uu leeyahay u furnaaw fikradaha cusub iyo sidoo kale aragtiyaha kala duwan. Waxa uu leeyahay waa siyaadin kartaa ogaalkaaga iyo aqoontaada iyo fahanka aad adduunka ka haysato, waana ka fogaan kartaa maanxirnaanshaha iyo sidoo kale fikir dhuubnaanta mise maskax yaraanta. Inta badan marka dooda jirto qof kasta wuxuu isku dayaa inuu noqdo qofka dooda isku guuleysta, laakiin inaad dooda ku guuleysato micnaheedu maahan inaad dadka ka caqli badanta. Isku day inaad ka faa'iidaysato waxa qofkaas dhigaaga uu sheegayo. Number 10. Be precise in your speech. Warkaaga ha koobnaado hana cadaado. Waxa xeerkani uu noo sheegayaa muhiimadda ay leedahay inaad warkaaga koobtid oo cadaysid marka aad fariin gudbinayso. Waxa uu ku doodayaa qoraaga dadka qaar markay rabaan inay wax sheegaan maanta dhan wada kale soo marmarayaan, waxyaabo aan loo tirsan ka hadlayaan, yacni waxa saxda hal mar kama hadlayaan, warkoodana ma soo koobayaan, si xanaf la'aan wax ma sheegayaan. Luqadda aad ku hadlayso waa luqad awood badan, waa luqad wax kasta ku cadayn karto. Marka luqadda awoodeeda mise nidaamka luqadda inaad ka faa'iidaysato oo waxa aad dhihi rabto aad si kooban aad u sheegto adigoo waliba isticmaalaya luqad dhimrin ay ku jirto iyo nasteexayn ay ku jirto. Number 11 mise number 21. Don't bother children when they are skateboarding. Yacni caruurta ha carqaladaynin, ha dhexgelin marka ay cayaarayaan skateboardingka. Qodobkan wuxuu hoos ka xariiqayaa muhiimaddu ay leedahay in caruurta loo ogolaado inay khatar qaadaan oo u bareeraan oo ay sahmiyaan waxyaabo kala duwan iyo bay-ooyin kala duwan, xitaa haddii arrinkaas dadka waaweyn uu khatar ula muuqdo mise raaxad la'aan uu ku abuurayo. Waxa uu ku doodayaa wax caadi ah oo fiican in caruurtu ay sameeyaan waxyaabaha khatarta sababtoo ah taasi waxa ay u noqonaysaa waddo ay ku tijaabin karaan awoodooda oo ay ku jabi karaan xaddiga mise waxyaabaha celinaya sida cabsida. Taasina sidoo kale waxay ku abuuri kartaa inay xirfad yeeshaan, horumar sameeyaan, kalsooni ay lahaadaan. Waxa uu leeyahay waalidka waa inay ka fogaadaan inay faragashtaan caruurta markay cayaarayaan, meesha rabaan ha fuulaan, meesha rabaan ha ka boodaan, meesha rabaan ha ka dhacaan, yacni jug iyo dhicid waxba kama dhibayso ayuu leeyahay. U ogolaaw caruurtaada inay maaragto u bareeraan khatarta, taasi kalsooni iyo adkaysi ayay siinaysaa. qodobka ugu dambeeya wuxuu leeyahay yacni marka ugu horeysa yaanyuur wadada ku aragtid yacni rabaayadeyso. Xeerkan wuxuu noo sharaxaa muhiimaddu ay leedahay inaan farxad ka raadsano waxyaabaha yaryarka ah ee hareeraheena ka dhacaya. Waxa laga yaabaa inaad markasta tiraahdo waxaas markaan sameeyo, hadafkaas markaan gaaro, guushaas inay gaaro farxad ka hela, laakiin waxyaabo yaryar ayaa sameyn karta oo farxad kuu sameynaya. inaad xiriir la sameyso iyo sidoo kale inaad jacayl tusto dadka kugu hareereysan ayaa waxay ka mid noqon kartaa inaad farxad hesho. Inaad sidoo kale xayawaanada aad la falgasho, isku daydo xitaa mukulaalaha wadada jooga aad rabaayadeysato, guriga keensato ayaa farxad ka heli kartaa. marka qaybtan wuxuu kaga hadlayaa yacni muhiimaddu ay leedahay qofku inuu waxyaabaha yaryarka hareerihiisa yaalo uu farxad ka samaysan karo halkii uu wax weyn mar walba ka raadi lahaa mise wax adigu ama aan la heli karin mise wax adigu u baahan qarash badan mise wax adiga maaragtay u baahan tamar badan inta farxad ka raadi lahayd. wuxuu leeyahay waxa jira waxyaabaha yaryar aad farxad ka samayn karto. marka 12 rule ayuu buugani ka kooban yahay sida sheegay magaciisana waa 12 rule. intaas marka ku soo koobay waxaan rajaynaa inaa maaragtay fahamtay macquul in aanan qodobada qaar si fiican aanan u sharaxin laakiin buugana xurkiisa kastoo uu badan yahay isku dayna soo koob muuqaalkan inuu dheeraada laga yaabaa. marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.